dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u sheegtay inaysan jirin waqti cayiman oo lagu soo afjarayo dagaalka ama xiisadda sii kordhaysa ee kala dhexeysa Iran, arrintaas oo muujinaysa in Washington ay qaadatay istiraatiijiyad ku saleysan dabacsanaan iyo qiimeyn joogto ah oo ku saabsan xaaladaha amni ee Bariga Dhexe. Afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in howlaha militari ee la xiriira Iran aysan ku xirnayn jadwal go'an, balse lagu hagayo horumarka ka jira goobaha dagaalka iyo khataraha amni ee soo baxa. Ma dejin karno waqti kama dambeys ah xaalad sidaan u cakiran. Mudnaanteenu waa badbaadada ciidamada Mareykanka iyo xulafadeenna, ayuu yiri afhayeenku. Sidoo kale aqalka cad ayaa xusay in maamulka uu doonayo inuu ka fogaado qaladaadkii hore ee dagaalada muddada dheer socday sidii kuwii Ciraaq iyo Afghanistan, halkaasoo jadwal la'aan iyo istiraatiijiyad cad la'aan ay keentay khasaare dhaqaale iyo mid naf. Mareykanka wuxuu hadda isku dayayaa laba wado: cadaadis militari iyadoo la kordhinayo joogitaanka ciidamada iyo qalabka militari ee gobolka, diblomaasiyad iyadoo la furay albaabyo wada hadal oo lala yeeshay Iran si loo yareeyo xiisadda. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in wada hadalka uusan xirnayn, balse uu ka xiran yahay sida Iran uga jawaabto baaqyada caalamiga ah ee ku aadan joojinta falalka militari iyo barnaamijyada hubka. Khabiirada siyaasadda ayaa sheegay in Mareykanku uu si ula kac ah uga fogaanayo inuu dejiyo jadwal rasmi ah. Waxay siinaysaa xorriyad istiraatiijiyadeed, waxay ka hortagtaa in cadowgu ka faa'iideysto waqti cayiman, waxay u oggolaanaysaa jawaab degdeg ah haddii xaaladdu isbedesho. Jadwal la'aan micnaheedu ma aha qorshe la'aan, balse waa qorshe dabacsan, ayuu yiri falanqeeye ku sugan Washington. Xiisadda Mareykanka iyo Iran waxay si toos ah u saameynaysaa dalalka Khaliijka oo ka cabsi qaba dagaal ballaaran. Suuqa shidaalka, qiimaha saliidda ayaa kor u kici kara. Amniga caalamka, gaar ahaan maraakiibta ganacsiga ee maraya marin-biyoodka muhiim. Dalal badan oo ay ka mid yihiin Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay ayaa ku baaqay in la xakameeyo xaaladda lana bilaabo wada hadal degdeg ah. Maxaa xiga? Inkastoo aysan jirin waqti cayiman, haddana dhowr arrimood ayaa go'aamin doona jihada xaaladda: jawaabta Iran ee cadaadiska Mareykanka, doorarka dalalka kale ee gobolka, horumarka wada hadallada diblomaasiyadeed. Dhacdo kasta oo militari oo cusub iyo ilo diblomaasiyadeed ayaa tilmaamaya in wada hadallo qarsoodi ah ay socdaan, balse horumar muuqda weli lama xaqiijin. Go'aanka Mareykanka ee inuusan dejin jadwal cayiman wuxuu muujinayaa xaalad cakiran oo aan si fudud loo saadaalin karin. Inkastoo Washington ay sheegtay inay dooneyso xal nabadeed, haddana ficilada ka socda dhulka ayaa muujinaya in xiisaddu weli tahay mid halis ah oo sii jiri karta muddo aan la hubin.